السلام عليكم كاجملا دجال كنا دجالدي ونا تاريخ عالم كي هرا تاسي ودا جلن دولدي وليد بيرشيل ومجاعب تري وبقر كاها وقت جاس داروس كي صدحات هي دولدي مسدونيا وألكسندر دجريت بقر كاها تاسو جوش ألكسندر دجال كان كجاري كدكتين كلي كتليو قاردي شيء قاردي هذا مقال كنا وحنا كجال أن صدور دعاية دجال كي جملا ده شو كودي أكتوبر صدح بقصة دنيا كودي بيسي أما كور درشلي نبعز أيام قابت جملا لقوا مجابع عراق كتالكو كل من لبي دولة وقت جوا ودبنا بيرشيا يوم السودانية ألكسندر دجال كان تاكتيكال عجيب سوء وجه عيدا كبدن عيدا كيس الشنشر أما الشنشر كله بالعمل حق بقر كي داروس كي صدحات وسبو ربنا سواف ترويل كان دنيرتا لو كسو تشبيه دجال كي أي هرو وذا جلنا إساس اللي مجعاب تري بقر كي بيرشيا داروس كي صدحات مركب حسين دجال ككور إن أمري قبله كتير جرا ما ماله كتير جري ماله البوكو أمرين السنة كان عشور لجربي ولا جرب كلن أطابر ما دام دول أدو بلادن كتير وحصول ورعيدا أدو فربان كلا دول مذبحان دقنهان الدين أهم وحانو هل جوبس كوكو كان عيدا كي أوبنا التاريخ الأسياني هو ورق waxaa lagu qiyaasaa ciidanka oo halkan goobs ku keenay 500,000 ama 500,000 xagga qaarkood xoogaa ka yarayaan ilaa 200,000 meelahaas waxa laakiin waa ciidankii ugu ballaarnaa ee hal goob la isku keenay taariikhdaas xagga Alexander ciidankiisu gaareen 45,000 ilaa 47,000 kaliya cabsi aad u ballaaran baa soo wajahday qaar ka mid ah hogaamiyaashiisa uu ka mid ahaa Berminio ninka lagu magacaabi jiray wuxuu kula taliyay Alexander in uu ciidankan aad u farabadan aadagtaysi ku wajahan marka aan weerarna buu ku habeenkii ugu horreeyay ألكسندر لكن أرنته وكبدية وحنو الشيءين هذا هبين كوير دون والصباح لا دجال من دون ألكسندر مركا خطر أهم وجه إنه هدوك وجلس دجال كان جمال وكتلين دون دولة بيرش سودان تقارد إيش يودن هدي لقى جلست لكن إن أنا كدم بين عيدا حوجا أو بقرطوين سمسدوني لاني بيرشنا أركو قبض دون بقرطوين سمسدوني قوبت دجال كمركل لسسور استاجي عيدا كبيرش وحي استراريا مسافة دون 6 كيلومتر حق عيدن كالكسندر هل كيلومتر أنا جمعين دجالكم مركب بلودي ألكسندر روحوا أمر سي عيدن كيس الدحدة تاعنا أو قوة بس وقت جاس ورا ما أدو دادر إن أي كلام دجالك. The phalanx, blocks of individuals, 256 men, arranged 16 across by 16 deep. حق ألكسندر يفردولي بس وقت يلقوا الشعبين يفردولي دي هو نكسنا دنيا هاي. ay goobta dagaalka Hariska ka dhaqaaqan sidii wax goobta dagaalka ka baxay oo kale iska tagay taasoo ka yaabisay Daroskii saddexaad Daros markuu arkay fardooleydan iyo Alexandro iska sii socdo dhinac u sii baxay wuxuu ka baqanay ciidankani fogaadani soo dabarjibiyaan hadhow marka wuxuu amray in adeerkii oo waqtiga dagaalyahan ah Bessos lagu magacaabi jiray inuu dhinac socdo uu ka celiyay inay soo wareegaan xagga dambe kaga yimaadaan ama dabarjibiyaan Bessos makes his move with his cavalry. They begin to ride parallel with Alexander. dagaalku wuxuu geystay weli socday xagga Alexander iyo Fardooleyis weli goobtii dagaalka ka sii fogaanayeen iska sii socdaan kuwii kale oo hogaaminayay Bessosna ay garab socdaan laakiin wax dagaal aan isku qaadin kaliya Alexander nus ka socdo kuwana ay ka cilaan inuu soo dabarjabiyo Alexander ciidankii Persia ee dhinac socday markuu ka fogay goobtii dagaalka ayuu soo saaray ciidamo hoosta ku qarsinay maryo asaas oo ku dagaalama hub fudud sida warafka oo kale iyo waranka iyo leeb wuxuuna amray ciidankiisii maryaha cas ay ku dagaalamay dhagaxaantiyo warankii leebkiyo inay ka mashquulaan ciidankan dhinac socda ee weeraraan حق سجي فردوليس ديبو كسونقدان دنكي دغالك isagoo ka faa'iideysanaya booska ka dhaqaaqan ciidanka dhinaca Saudi Persianka Wage El Dorado
ciidamadii Persianka markay arkeen Alexander oo dib u noqon goobtii dagaalka dib ugu cararay waxay isku dayeen inay ka daba yaacaan ama ka daba tagaan laakiin ciidamadu Alexander si diyaariyay dharka casaaba ka mashquuliyeen inay daba galaan oo dhagaxaan iyo waramiyo leebsi ula dhaceen way awood waayeen inay daba galaan Alexander iyo fardooladiisa iyo Alexander markaa waxay soo dhex galeen ciidamadii Persia iyagoo ka faa'iideystay booska ka dhaqaaqeen ciidamadii kale Persianka ahayd dhinacoodii wax iska caabinayna lama kulmin ilaa ay ka soo gaareen boqorkii Persia Darius markuu arkay ciidamadii goobtii dagaalka ka sii socday markii hore uu moodayay inay soo dhabar jabinayaan oo isaga dul taagan uu yaabo ilaaladiisna ay kala yaaceen isaguna markiisa hore ma ahayn nin dagaalka ku jiro ciidanka hogaaminayeen xagga dambe intuu istaagay ciidanka tilmaamayo markuu arkay ilaaladiisna inay kala yaaceen isagina maxaa dhiga u cararay Darius markuu baxsaday Alexander wuxuu isku dayay inuu eriyo si uu dagaalkan si dhaqso ugu soo gabagabeeyo boqorka dilo dagaalku soo dhamaado laakiin waxa dhacday arrin ka joogtay erishadiisa oo ahayd in ciidankiisa dhankii bidix uu hogaaminay Barminio ninkii lagu magacaabi jiray ay la kulmeen cadaadis aad u fara badan heer ay u dhow yihiin bayna jabaan oo qaar badan laga laayay Alexander marka laba arrimood ay soo wajahay in uu boqorkan eriyado oo ciidankiisa dhankii bidix Barminio hogaaminayna la laayo ama inuu ciidankiisa u tago oo taakulahaan ugu tago oo boqorkan iska baxsado Alexander marka wuxuu go'aansaday inuu noqdo ciidankiisa badbaadsadii Barminio hogaamiyihiisa uuna noqday dagaal culus kadib way guuleysteen ciidankii Persia boqorkii laakiin uu baxsaday saasana guushii gaagamada dagaalkii lagu magacaabay ku raacday boqorkii Macedonia Alexander the Great dagaalkan kadibna wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay boqorka Persia dawladii weyneed ee Asia ka talinaysa dagaalkan kadib Alexander wuxuu sii waday inuu laayo xoogaagii ka hadhay ciidamadii Persianka oo waqtigaas joogay Afghanistan meesha lagu magacaabay Hindiya Alexander weligii dagaal laguma jabin waxaana lagu tilmaamaa hogaamiyaashii ugu wanaagsanaa uguna wacnaa ee soo maray reer galbeedka ama Westernka dagaalkan Macedoniyiinta waxaa ka dhintay 1,000 nin kaliya xagga ay ka dhinteen Persianka 50,000 Dariuskii saddexaad ee baxsaday buuraha galay isla sanadkaas waxaa dilay nin ka tirsan ciidamadiisa Alexander dagaalkan markuu ku guuleystay 26 jir buu ahaa uu ku dhawaaqay inuu boqorka yahay qaaradda Asia iyo Yurub markii soo ka soo tilmay 26 sano kaliya uu jiray intaas kadibna wuxuu noolaa 6 sano kaliya oo 32 jir buu ku dhintay xaggaasana ku raacay magaciisa caanka ah ee Alexander the Great ama Alexander kii weynaa muuqaalkan maanta intaas weeye fadlan hadduu ku cajibiyo muuqaalkan subscribe sar lana wadaaga asxaabtaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته